cid kasta oo degan dhul dowladeed waxaan kula talinayaa lahaansho ma jiro hayse siin ka tasho waayo waa lagu tashanayaa dhulkaas dowlad baa ku tashanaysa ciddu meel hay-ad kasta meel bay leedahay oo astaysan tahay waana hanti ummad soomaaliyeed marka hanti ummad soomaaliyeed haddaa kusoo mooday lahajaclayay kaa gelin waxaa ka fiican wax adigu aad leedahay oo aad ku tashatid aad bay waxay noogu tahay farxad inaan maanta goob joogno xaruntii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha oo dhul wanaagsan oo bilic badan waqtiyo ka hor ahaan jiray ayna saamaysay duruufadii iyo dagaaladii iyo wixii dalkan ka dhacay oo maanta uu kasoo kabanaya dalkan ilaahay mahadiis khayr baan u rajaynaynaa waa mahadsan yahay duba magaalada muqdisho iyo muxuu ahaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha gobolka banaadir oo si gooni aan ugu mahad celinayno ugu amaanayno macalin maali iyo khiyaartii tira badan oo guddoomiyaha duba magaalada muqdisho ugu horreeyey halankan dadkii deganaa haddii dowladdii usoo baahatay dhulkii si nabada oo xasilooniya oo sharfan looga kiciyey aada iyo aad bay iyagina u mahadsan yihiin runtii qoysas wanaagsan bay ahaayeen oo dad nabadeeda waan ammaanaynaa dadka soomaaliyeed oo magaalada khaasatan muqdisho degan cid kasta oo degan dhul dowladeed waxaan kula talinayaa lahaansho ma jiro hayse siin ka tasho waayo waa lagu tashanayaa dhulkaas dowlad baa ku tashanaysa ciddu meel hay-ad kasta meel bay leedahay oo astaysan tahay waana hanti ummad soomaaliyeed marka hanti ummad soomaaliyeed haddaa kusoo mooday lahajaclayay kaa gelin waxaa ka fiican wax adigu aad leedahay oo aad ku tashatid inaad intaad muxuu ahaa xoogga leedahay u guudid caruurtaadi way kaa dhacdin adigu muxuu ahaa ku tashan intaad tabar leedahay ka tasho guddoomiyuhu waa mahadsan yahay nolol badan bay baneeyeen oo hay-adihii lahay u baneeyeen safaaraday baneeyeen oo kuwa hadda nagu xigo oo safaaradda talyaanigu ay ka mid tahay dadka soomaaliyeed ka baxbi'inayaa magacyuu u bixiyaa waa la gadanaya waa la qaadanaya waa la iibsanayaa waxaas uma jiraanine dhulka hay-adaa leh hay-adihii lahaadaana loo banaynayaa haddii ilaahidanka in loo baneeyana waa waajib wey waa shay waajiba weeye dad muxuu ahaa haddii ilaahidankeeda leeyahay aniga kuwaa iga soo xiriira waxay yidhaahdeen dhulkii wasaaradda waa la baneeyeyo waa dad baa loo qaybinaya meel baa qaadanaya dad qaadanaysa male maanta arakarna iyo duga magaalada muqdisho iyo madaxda kaleba waxaan u joognaa in lagu wareejiyo hay-addii qandaraaska heshay halkaa boorkeeda lagu soo dejiyo maalinta la dhagax dhigayana annaguna haddii ilaahay noo garto aan noolnahay waa joogaynaa madaxda qarankuna waa joogaysaa hay-addii bixisay muxuu ahaa hantida safiirkeeduna waa joogayaa madal baa halkaas oo kalaa baa muxuu ahaa haddii ilaahay darkeeda leeyahay maalintaasna waa iskugu imaanayaa boorkeedaa maanta laga bilaado lagu soo dejinaya meesha naqshadiiyo sida lagu samayso sidahay quruxda hadda ay ahaan jiray wakti mid kasii qurxan baa halkaas maanta waxaan u nimaanada iyo guddoomaha iyo intii ka shaqaysay inaan u mahad celino way ugu horeeyaan ciidanka booliisku iyo muxuu ahaa haddii dadkii ka guuray iyo hay-addii muxuu ahaa si qashinkan iyo waxaan ay uga sii habayso ugu diyaargarowday dhismihii la dhisi lahaa maalinta la imaanayo oo madaxda qaranku naga sii koraysaa cidi ka imaan doontana ay muxuu ahaa haddii ilaahidankeeda leeyahay aan ka badanno intaasaan u nimid aad baan ugu faraxsannahay haddii ilaahidankeeda leeyahay magaaladaani waa dhismaysaa waa calooshii ummadda soomaaliyeed weeye waa meel la iskugu imaanayo waa meel qof kasta oo meel fog jiraa ku tashanayo qof walba oo gudaheeda hadda ku jiraan xil baa ka saaran hagaajinteeda iyo wixii la leeyahay oo muxuu ahaa ama shaksi leeyahay ama ummadda soomaaliyeed leedahay inuu iska ururiyo gudoomiyuhu waa kalaa aad aad u mahadsan yahay way wadaan haddii ilaahidankeeda leeyahay ciddii hadda wax isku dhejisa oo qayrsan ceebun baa ka raacdee natiija ugama soo baxdo
marka cidina iyo isku dhejin iyadoo sharfan ku ducaynaysa iyadoo la qirayo ha ka tagto insha allah meeshaas maanta qashinka badanna oo muuqaalkeedu xun yahayna iyadoo qurxan baa la arki doona magaaladaas oo dhanna iyadoo qurxan oo wada nuuraysa oo haddii ilaahay dhankeeda leeyahay baynu rajaynaynaa shalaya maanta farqaba udhexeeya waynu aragnaa maanta haddii ilaahay dhankeeda leeyahay quruxdeeda iyo fantida ka taagan iyo magaalada kuwa qawaaniishta muxuu ahaa dadka meelaha quruxda u ah haddii ilaahay dhanka isleh wejigeeda bi'iya oo caasimadda muxuu ahaa wejiga ka dila oo dalka soomaaliyada ka dila ma baasoomayo shalay meeshay muqaaxiyeen maalintii ku xigtay sidiibaa munaasabado iyo qurux iyaga loo fadhiyo loo joogay oo loogu dabaashaarayay dadka soomaaliyeed kuwa muxuu ahaa waxaas haddii ilaahay dhankeeda leeyahay argagixisaa sidaa yeeshay muxuu ahaa ama ka baq ama muxuu aha ku cabso waxaas waa dhamaatay cabsigeli waa dhamaatay cabsigeli waa dhamaatay way soconaysaa dalkaanuna waa soconayaa hayaan buu ku jiraa meel amni iyo bilic iyo muxuu ahaa guul buuna ku dambayn doonaa waana u socdaa marka aad leed waa mahadsantihiin guul iyo khayr baan isu rajaynaynaa waa mahadsantihiin